qaabka oo ilmaha ee uurka u jiifaan qaabkan u jeedin ilmaha inta badan markay ay yar yihiin aad u yar yihiin qaab loo tilmaamo ma lahan caloosha aad ay isu gadgadiyaan madaxoodan hoos ma soo jiro 7 bilood wixii ka dambeeyo ee ilmaha waxay sameeyaan in madaxooda hoos soo aadiyaan si ay sinaha u soo dhaxgaliyaan dhalmada ay ugu fududaato marka qaabka noocaas camal uu noqonaya kan waa laf dhabarta waa sheegnay waxa dhahnay waxa ugu horeeyo cervicalka thoraciga qaybta waa lumbarka qaybta waa sacrumka qaybta ugu dambeysana coccygealka sidoo kale marka laga hadlaayo xubinta markaas oo taranka hooyada uteruska qaasatan oo ilmaha markay ku jiraan qaybta dambe ilmaha waxa ka xigo rectumka waxa la lahaa kaadihees meesha saxarada lagu aruuriyo waxa la lahaa rectumka cunuga madaxiisa uu ka hooseysaa sidoo kale dhinaca kale waxa ka xigo bladderka oo ah meesha kaadida ka soo xigto marka labada dhinac waxa ka jiraan qaybna waxa ka jirto meesha saxarada qaybna waxa ka jirto meesha kaadida dhaxdoodii marka waxa la rabaa cunuga inuu soo maro qaabkaas marka cunuga madaxiisa uu soo galiyo danna uu ka soo baxo vaginaha oo habkii ama kanalka loogu talagalay cunuga inuu ka dhasho